macallimada iyo habla ardayga ku qaaday bas. kadib gabar ayaa ka fogaatay meeshii ay joogeen ardayda kale. markii la gaaray waqtigii la tagi lahaa, hablihii waxay fuleen baskii. markii ay maqashay guuxa gaariga, waxay tuurtay wax walba faraheeda ku haysay, waxayna u qaylisay gaarigii, laakiinse cidina ma aysan maqlin. baskiina wuu fogaaday. gabadhii waxay bilowday inay lugayso iyadoo baqanaysa. markii habeenkii la gaaray oo qayliyeen bahalihii hareeraheeda ahaa, aad ayay u sii baqday. kadib waxay aragtay guri yar oo meel cidla ku yaala. gurigan waxaa degnaa nin dhalinyaro ah oo faqiir ah. waxay u sheegtay qisadeeda, kadib wuxuu ku yidhaahday dhib ma leh, aniga ayaa la seexanaysa caawa, kadib subaxdii ayaadaysaa meeshaa ka timi si kuu qaado basko. waxaad seexanaysaa sariirta, anna waxaan seexanayaa dhulka. waxay ahayd gabadhu mid qurux badan, kana soo jeeda qoys maalqabeen ah. in badanoo ka mid a dhalinyartana waxay ku hamin jireen inay guursadaan, maxaa yeelay waxay ahayd qof akhlaaq wanaagsan. habeenkii oo dhan ma ay seexan, maxaa yeelay way baqaysay. waxay aragtay wiilkii wax ka badan hal mar intuu qur-aanka akhriyo, kadibna dab shidaaya, markuu dabka shidana ku daminaya fartiisa ilaa ay ka gubteen farihiisii shanta ah. الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. inantii waxay u malaysay inuu waalan yahay inankani. markii la gaaray subaxii, wuxuu la aaday gabadhii goobtii baska. markii ay tagtay gurigoodii, waxay uga warantay aabbaheed qisadii oo dhan. aabbihii wuxuu goostay inuu aado goobtii wiilka si uu ogaado sababta uu farihiisa u gubayay. markii uu tegey, wuxuu arkay inankii u duuban yihiin farihiisa. aabbihii ayaa weydiiyey, maxaa kaa helay farahaaga? wuxuu ku jawaabay inankii dhallinyaradahaa, xale waxay timaaday gabadh, waxayna seexatay agteeda. shaydaanna wuxuu ahaa mid ii imaanaya, kadib waxaan akhrinayay qur-aanka si uu iga tago, laakiin igama igu tegayn. kadib waxaan gubayay fartayda si aan u xasuusto cadaabka jahannama. kadib waxaan ku noqonayay hurdada. kadib shaydaan wuxuu imaanayay mar kale, sidaas baan samaynayay ilaa ay ka gubteen farahaygii shanta ahaa. aabbihii wuxuu yidhaahday kaale guriga ila aad. markii ay tageen guriga, wuxuu yeeray inantiisii, wuxuuna ku yidhaahday magaranaysa inantan? inankii wuxuu yidhaahday haa, oo waa inantii ila seexatay xalay. aabbihii wuxuu yidhaahday waan ku siiyey inanta. nebiguna wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, shay ilaahay dartiis kagama daysid ilaa ilaahay wuxuu kugu bedelaa wax ka khayr badan. inankii wuxuu sujuuday ilaahay isagoo u shukri naqaya, maxaa yeelay xaaraantii ilaahay wuxuu ugu bedelay xalaal. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.